kulan wacan daawade halkan waa xogta qarsoon. muuqaalkani waxaan kusoo koobayaa haddii Roble iyo Farmaajo ay heshiin kari waayeen maxaa dhici kara. daawade muuqaalkani ayaan kusoo koobayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay barteeda xogta qarsoon ay kusoo gaarto. magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxmed, waxaan kaa codsanayaa inaad ila sii joogto oo saaxiib ila noqoto. hagaag kadib kulan saacado badan qaatay oo shalay ilaa iyo xalay u dhexeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xilli dambe oo xalay waxaa natiijo la'aan uu kusoo ilaaday shirarkaas. dad xogogaal ayaa sheegay in arrinta taliyaasha labada mas'uul ka magacaabeen hay'adda sirdoonka kiiska karaan tahliilayeen qodobada ugu adag ee la isku fahmi waayay. lama ogeyn wadahadalladan oo dadaal badan ay ku bixiyaan madaxda galmudug iyo koonfur galbeed mar kale dib isugu soo laaban doono. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa u dhexeeyay khilaaf aad u soo shaabaxay isbuucan oo ku soo aaday xilli lagu dadaalayay inay qabsanto doorashada waqtigeeda kadib dhacday. haddaba maxay ka dhigan tahay in dadaaladii shalay ilaa iyo xalay socday ay miro dhal noqon waayaan? horta aan wada hadalno, waa aan heshiino, waan soo dhaweynaynaa inaan wada hadalno oo is hor fadhiistaan madaxda iyadoo weliba ay dadaal ku bixinayaan mas'uuliyiin kale oo Soomaali ah. xalay in lagu kala tago arrintaas aad ay shacabka Soomaaliyeed ugu niyad jabeen. waxaa la sugayay in lagu heshiiyo sababtoo ah waxaa muuqday in wax badan oo lagu heshiin waayo aysan meesha saarnayn. laakiin waxaa soo baxday mar haddii lagu kala tagay inay jiraan wax badan oo lagu kala duwan yahay oo lagu kala aragti duwan yahay. waana wax laga xumaaday in hal koox oo dowlad isku ah oo wada joogta hal guri oo 500 kiiloomitir ah ka yar ay hoggaanka dalka isku fahmi waayeen. arrintaas niyad jab weyn ayay u keentay shacabka yiri agaasimaha macadka Heritage. inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn, haddana wararka qaar waxay sheegayaan in waxyaabaha la isku hayo weliba ay adkaatay in xal laga gaaro yihiin laba qodob oo kale ah arrinta kiiska Karaan Tahliil Faarax iyo arrinta taliyaasha nabad sugidda oo ay kala magacaabeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Roble. iyadoo arrimahaas aan kor kusoo xusay ay u muuqdaan kuwa isa saaran islamarkaana saldhig u ahaa khilaafka iyo dadka falanqeeya arrimaha Soomaalida waxay sheegaan in arrimahani aysan noqon karin caqabad ay labada mas'uul dalka ugu sareeyay isku fahmi waayeen. mursal maxamed sinay agaasima ku-xigeenka macadka Heritage waxa uu qabaa in qodobadan ay yihiin kuwa fudud oo xal laga gaari karo maadaama madaxdu ay hor yaalaan arrimo kale oo culus oo ay doorashadu ka mid tahay. in lagu heshiin waayo waa nasiib darro. Karaan cadaalad ayay u baahan tahay, waalidkeed cadaalad ayay u baahan yihiin, hoggaanka amniga oo la magacaabo in la isku khilaafana qudheeda waxa maasha ku jira oo qof walba dhinac ayuu ka fiirsanayaa. haddii ra'iisul wasaaruhu la weydiiyo wuxuu leeyahay amniga aniga ayaa ka mas'uul ah. haddii madaxweynaha la weydiiyana wuxuu leeyahay aniga ayaa taliyaha ciidamada qalabka sida. marka qof walba wuxuu adeegsanayaa maadaama dastuurka inuu ku meel gaar u yahay, yiri mursal sinay. wuxuu aaminsan yahay in haddii si dhib ah loo wada hadlo ay madaxdu ku heshiin karaan arrinta si aanay dhibaato hor leh u abuurin. haddii dadaaladan gudaha guuleysan waayeen gacan shisheeye ay imaan kartaa. waanta socota hadda waxaa wada oo hormuudka madaxda goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed kuwaas oo ku dadaalaya in xal laga gaaro khilaafkan xiisada ka dhalatay. ha yeeshee waxay u muuqataa inaanay weli ka gaarin natiijo la taaban karo. waxaase la isweydiinayaa haddii sida qorshuu yahay wax u dhici waayaan oo dadaalada lagu wada heshiinayo mas'uuliyiinta dalka ugu sareysa la isku fahmi waayo ma iman kartaa fargelin dhanka caalamka oo la isugu keenayo Farmaajo iyo Roble. waxaa aad u aaminsanahay in markasta oo ku celcelinaa in Soomaalida ayagu ay xalistaan arrimahooda sababtoo ah ceeb ayay nagu tahay in 30 sannadood ka badan nagula dhex jiro. balse haddii la heshiin waayo waxaa qasab ah inaan anagu noqonaysaa mid kale oo xitaa waxay dalka ku sugan ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jeen Maxamed waxaana ay la kulantay ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada. marka waxa laga hadlayo ugu weyn waa doorashada arrimaha cadaaladda. marka arrimaha faraha ay la soo gali doonaan iyadoo intaan loogu falxun yahay oo Soomaalidu ay ku inaahaysan tahay shacab iyo madaxba waxa la isku qasbi doonaa wixii markaas loo arko inay xal tahay, yiri mursal. haddii dib la isugu soo laabto miiska wada hadalka ay mar kale heshiin waayaan Roble iyo Farmaajo waxaa dhici kara haddii ay timaado in lagu heshiin waayo waxay noo muuqatay in colaad iyo dhibaato keeni karto. taasna waxay ka dhigaynaa ama ay ka dhigaysaa in dalkeena loo horseedo colaad iyo dhibaato. dalkan waxaa la rabaa in doorasho la aado oo sidii horey u dhici jirtay si nabad leh la isugu wareejiyo xilka. xitaa haddii madaxweynaha hadda joogo dib loo soo doorto waa in dalka uu sii hogaamiyaa. waxaa la isku khilaafaba meesha ma yaalaan, waa wax fudud. marka waxaan ku talinaynaa in Soomaalidu aan la daalin oo aan dalkan lala barbar dhigin Afghanistan. dad baa raba in Soomaaliya dib ay u celiyaan, marka waa in dadkaas loo fududeeyaa hadafkooda, ayuu yiri agaasimo mursal oo arrimahani ka hadlaya.
tani waxay abuurtay xiisad badan, waxaana muuqata in xalka ugu fudud ee madaxda dalka lagu heshiisiin doono go-aankooda dhowaan la qaadan doono, taas oo ah xalka ugu fudud ee guud ahaan lagu soo afjari karo khilaafkan xoogeystay ee madaxda dalka horyaal. balse haddii uusan khilaafkan sida ugu dhaqsiyaha badan ku dhammaan, Soomaaliya waxaa dhici karta in doorashooyinkeeda dib ay u dhacaan, taas oo ah khilaaf hor leh oo dalka soo gala. guud ahaan daawadayaal, muuqaalkeeni waa naga intaas, nabadgelyo.